goostay waxay tahay in layla taliyaan rabaa ina maxaa la dhahaa dhibkaygana dadka Soomaaliyeed soo duceeyaan waan dhibanahay bay tiri gabadhaas waa gabadh isaaq hooy dadka isaaq oo meesha ku jira hadhow ha ka xanaaqina barnaamijkan waa barnaamij loo soo dhibtay ma fahmaysan waxa way anaga waa jecel walaaladii baatiin laakiin waxaan nagu samaysan hadda cunsurnimo dadkuna ma wada sinno farihiina sayna u sinnayn ayna dadka u sinnayn ma fahmaysan waxa way laba ay hooyo wada dhashay amba aabbo wada dhalaan sinnayn marka haddii afkaygu uu magaca ku soo dhaco isaaq ha ka xumaanina aad baan inii salaamaya waxa way gabadhaas waa gabadh reer Hargeysa ah gabadhaas waxa ay samaysay nin waxay is jeclaadeen gabooye ah nin gabooye ah way is jeclaadeen ninkii gabooyaha markay is jeclaadeen waalidkii dhalaa gabadhii laga doontay waa loo diiday wiilkii mar labaad baa laga doonay waa loo diiday waxa la midgaan kuma geeyo ma fahmaysan qof muslim kula oo kula diina oo kula dhaqana oo kula Soomaaliya oo kula waliba Somaliland kula sheeganayo gurigaaga kula degan ay u diiday waalidkii u diideen diintiina way si waa loo mehriyay gabadha uur bay yeelatay maadaama gabadha uur yeelatay familkii baa markaa maqlay aabihii dhalay maadaama maqlay gabadhiina uur yeelatay wuxuu sameeyay gabadhiisa buu qabtay iyo walaalkii gacmaha ayaa waxa laga xidhay silsilad iyo xadhig silsilad iyo xadhig waa gacmaha laga xidhay lugaha waa laga xidhay waa la dildilay qoorta waxa loo geliyay xadhig videogaas please inta aan daawan page-ka JWL iyo qaybteeda maxaan dhahaa Facebook-gayga waan soo dhignaa waad arki kartaan gabadhii hadlaysa inantii xadhig waa qoorta loo geliyay laba jeer markuu geliyay waxay tiri aan noqday bay tiri aan hafaday oo qayliye nafturiyayuga jara haddana markii labaad buu ii geliyay bay tiri qoorta haddana wuu iga jara teedii ayaa xudhinaayeen ma fahmaysaan waxa ku dhacday markaa haddana gabadhii gacmaha laga xidhxidho gacmihii bararsan yihiin jirkii dhabarkii cunihii madaxii caloosha fedhil iyo laad lagala dhaca uur bay lahayd ilmihii waa lagu dhex dilay hadda walaaleel u fiirsada ilmihii waa lagu dhex dilo wallahi baanan ilmo midgaan ah inaan u noqonin abtibaali gabadhu waa gabadh isaaq ah ma fahmi kartaan waan ka xumahay arrinkaa waan ka xumahay anu xamdi ahaan anu horaan u sheega waxaan idhi ragga Soomaaliyeed way jecel yihiin hablahayaga gabooyaha inay guursadaan waanaga taranteedu maxay noqonaysaa ilmo kale oo qabiiladii kale beelihii Soomaaliyeed beelaha kale ka soo jeeday noqonaysaa laakiin ma noqonayso ilmihii ma noqonayo inuu midgaan ku aftirsado ma fahmaysaan amba gabooyo ku aftirsado marka waxa ay noqonaysaa hablihiina nooma ogolidiin ma fahmaysaan marka adu dhibkaas waa dhacay inaan horaan u sheegay anu inaan gabooyo ah ma jeclo Soomaalida kale inay hablahooda siiso laakiin inaan gabooyo ah waa jeceshiin inaad guursataan ma fahmaysaan marka waxa weeye Soomaaliyeed anu markasta waan ka hadlaa qabiilkayga waan ka hadlaa sheekada guurka qofka u qaabilsan baan ahay xal marinta walaalaha la xumeeyo qof kula diina kula dhaqana kula dada kula sinji ah ya kula af Soomaali ah kula walaalka asaad cunsuriyeenisa aan diintu ku diiday ma fahmaysaa waa shahaadanayo muslim ah way aad cunsuriyeenisa markaan la taasay xamdiyay 17 kala maraya waxa mar hore ahaayeen waxa gabooyo la dhaha ma jiro waxa maxaa la dhahaa la dhaho midgaan ma jiro dadku waa walaalo anaga guursanayna bab meeday sidii ana maanta dhan kamaan ooyay inaan ka gabooyaha ah calooshiisa ilmo laga dilay waxaan ka ooyay aan ka murugooday inaan tayro miskiinta ah hadana qof jeclaatay qofkeeda ay jeclaatay aan loo deeynin laga dilay ayadii la dilay hadda noloshiisa ninkii waxa ay tiri qirqir bay ku jirtaa habeenba meel buu seexdaa camalna ma fahmaysaan ayada guri ma haysato waxay tiri walaalayaal ila taliya hadda ilmo meeyada caloosha ku sidaabay tiri marka koobaad ma fahmaysaan marka aan reerkii la xiriiray iyo meesha inta joogtay ilmo meeyada hadda caloosha ku sidaay meehi dhakhtar ma tagi karto wala dilaya meesha waa laga badanyay familkeeda ba eriyeenaya ma fahmaysaan dawladina xawayga naga qabanayso anaga maanta hadaan gabooyan hayna waxba uma qaban karayno inaan ku hadu daami degan yahay waa Hargeysa ah waan laga badanya ma fahmaysaan waxba uma qaban karayno inantii meel ay gasho male xaafadda gasho waa timidgaanka loo dili baraleey maxaan sameeyaa naftayda maandila halayla taliyo umada Soomaaliyeed hay soo duceeyada waalidkii i dhalay ayaa dhibka ay geystay batri qof ila muslim ah oo diinta islaamka ku dhasho xalaal ah oo diintu ii diidina lay diidayaa batri video ko daawan doonta please daawada ku noqon videoga page-ka JWL buu yaalaa marka waxa soo kale ma wanaagsano cunsurnimada inta lagu wanaagsano Somaliland oo dhan ka ma dhicin waxa ay ka dhacday waa Hargeysa
waxaan leeyahay shacabka reer Hargeysa ku nool iyo dowladaba Hargeysaba fadhidaba arrinka dib ha loo raadiyo inantaan nabadgelyo maxaa dowlad ku tahay Soomaaliland haddaadan nabadgelyadii inanta aadan ilaalin karin waa inaad ilaalisaa inantaan nabadgelyadeeda aad raadisaa oo xaafadda joogta raadisaa oo xaafadda gabooyaha raadisaa oo dhibka meeshuu ka jiro maanta aad ogaataa oo gabadhaas bal gacan ku dhigtaan hota waalidka dhalina maxkamad la soo istaajiya anagu maanta irantiisi hadduu dilay anaga noo soo goodo anaga madaxeega loo dilay sax ilmihiina anagana laga dilay marka hota waxaan leeyahay nabar xaq daraa uga dhigo ilmahana hadduu calooshooda ku dhintay ilaahay wuu ka soo deynaya wuu ka soo saaraya ma fahmaysaan marka aad baan idin salaamaya caawa saasay ahayd barnaamijka qof kasta uu ka qayb qaadan karaya insha allah la talintaas gabadha walaasheena ay leedahay ilmahii meed baan ku dhex jiraa hooyo aabba kuma noqon karayo ninkii meel maxaa la dhahaa gurigii waa kan markasta lagu soo weerarayo xaafadda uga cararaya maxaan sameeyaa bal ii soo sheega ila soo taliya Soomaaliya runtina la isku sheego ma ogolidin wallahi ana waa inii fiirsada run ma ogolidin inaan isku sheegno war qofka runta waa loo sheego qofka maanta runta kawkaga ma siinaysa way kan yaran nixinaysaa bis ninka rag baa leeyahay runta ma disho laakiin way kan nixisa Soomaa waxa weeye Soomaaliya markii la joogo Puntland markii la joogo Somaliland markii la joogo Ethiopia markii la joogo ma fahmaysaa dadkayga cagta hoostiisa aad gelisaan laakiin afarta qurbaha jooga mooy waxaad ku ogolaateen ku raacdeen hoosti ka gilgilayaan haa wala isguursanaya camalna caadi waaya wax caadi ah ma jirto cunsurnimada la iska daayo waxay Soomaaliya ka degi laadahay Somaliland ixtiraaf u laadahay ma fahmaysan abaaraha iyo ilaahay maanta sidaca inoogu wacan wallaahi billahi tallahi wadadka walaaladin ah aad cagta hoosteeda gelinaysaan run markaan inii sheego ma wanaagsan oo dhibaatada intaa leeg marka aad baad mahadsantihiin meel kasta aad joogtaan qofkii su'aal qabo waan ku jawaabiyaa oo soo geli karaya khadka telefoonkana waan furaynaa qofku u horeeyo ka soo qayb qaadan karaya insha Allah uu furaya khadka insha Allah ma sha Allah waa mahadsantahay walaashay ifraax deeriya gabooyo waa gobaatiri shukran adigoo kale yaa nooga dhiga dadka midhan marka waxaan leeyahay insha Allah ilaahay idinkiisa nidaamkayga ka ahayn khayr bay tagi doontaa maanta maalin aan ahayn bay garan doonaan qof kula dhiiga oo kula dala oo kula muslim kula ah oo walaalkaaga oo jaarkaaga ah taqaantay shalay xilligan wuxuu ku dhashay wuxuu gudo ayaad maagaysaa ma fahmaysaa marka bal telefoonkan u horeeyaan qabanayna insha Allah telefoonkan u horeeyo wuxuu naga soo gaaran malaynaya calaykum asalaam walaal soo dhawo walaal waa dhawahay aad baan u salaamay ummadda Soomaaliyeed aad baad mahadsantahay walaalkay adigoo barnaamijka dhexda ugu jira hadalkana soo gaabinaya insha Allah maxaad arrintan ka hadlaya ka dhiilahay hada walaal anoo aan barnaamijkooda daawan baan ku soo wacay caawa muxuu daahan yahay barnaamijku kulli daamin waxba leeyahay walaal waa mahadsantahay barnaamijka waxa laga hadlayaa gabadh beelaha Soomaaliyeed ka tirsan waliba beesha isaaq ka tirsan ayaa wiil gabooye ah baa guursaday maadaama wiilkii gabooyaha guursadayna waalidkii dhalay baa u diiday ka bacdi waxa la sameeyay gabadhiina waa la dilay oo nabar xoog ay qabtaa ilmihiina caloosheeda lagu dhex dilay uur bay leedahay maxaa la dhahaa ninkii gabooyaha waa loo diiday waalidkeedu way ka soo carartay gabadhii dhibaato aada haysa waxay u baahan tahay duco waxay u baahan tahay la talin maxaad kula talin lahaydeen gabadhaas labada dhacal ka gubatay wallahi gabadha waxaan kula talin lahaa oda marka hore haddii aan si guud arrinta aan uga hadlo oo aan bal ana aqligayga iyo anigu saan u arkayo maganaas haddaan wax ka yar tusaaleeyo hada waxa weeyaan dee mar haddii dadkii baaba marka hadda waxa weeyaan adduunyo casriga hadda lagu jira dadku waa horumareen waqti jaahiligii waa laga baxay waxa weeyaan waxyaabahaas oo kale waxaa fiicnaan lahayd wax dee lagu tahambaaba maaha oo saa usii weyn oo hadda dadku jaahiligi lama joogo waxa weeyaan mar haddii qofkii dad islaama oo dad walaala la yahay oo wax maanta kala xaaraantinimaynaya inay labadaa qof isguursadaan ayna jirin oo daliilo aan lahayn ay walaal waa mahadsantahay maxaad kula talin lahayd maxaad kula talin lahayd dowladda Somaliland maanta oo meesha ka talinaysa hadda waa u soo socdaa walaalle waxaan leeyahay waxaas oo tahay laga waantoobo dadka dad caadi oo isdhex gala bulshadu wala dadka dhalinyarada waa isdhexgalka ka shaqeeyaan ma leeyahay marka hore taas waa tala guud ma garato sax gabadhan kulli waxaan kula talin lahaa hadda gabadhu gurigoodii waa hadda ma joogto baa tiri miya sax ma joogto waaba la dilo oo laba jeer xadhig lagu dabay lagu hayo gacmaha baka bartay beeshka aad iga daawanaysid dadka daawan karta insha Allah bal hadhow
fiirsanay waxa weeye hadda gabadha reerkoodu in iyaga qudhooda loo wacyigeliyo weeyaan marka wacdigelinta Soomaaliya oo dhan bay xitaa ku socotaa Soomaali markaan leenahay reerku ku jira xitaa cid kasta af Soomaali ku hadasha waxaan jecelahay inay wacdigelinteeda dhigaysato ay daawato dadkuna isku mid yihiin insha Allah walaalkeedna waa mahadsantahay khadka ayaa maxaa la dhahaa koralka ugu badan waana mahadsantahay walaalkeed soo xidhiidhay hayo walaalkeed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دواad intii dabaday soo gashay ee lambarkayga meesha ku qoran yahay insha Allah ilaahay idinkiisa idinkayga ka ahayn waxa weeye barnaamijkaasina waa sidaas aan inii sheegay dhibaatadaas waxay ka jirtaa wadanka hadda maalinba meel bay ka jirtaa Soomaaliya dadku ma sinno hadda waxay ka jirtaa dhibaatada waxay taala waa Somaliland siiba waa Hargeysa shacabka reer Hargeysa iyo dawladda maxaa la dhahaayay maamulada dadka meesha jooga gobolada hadday tahay Burco hadday tahay maxaa la dhahaayay sheeg meel kasta Somaliland ka tahay waa inay arinta daba gashaa waa inay arinta maanta geed la soo saaraa waxa weeye ilmahan hagad ninka hadda inta dishay laakiin ta ilmihii gabooya dhalay inuu ku aftirsada ma doonaysid waxaad u dilaysid ilmihii caloosha ugu dhex dilaysid hadda ilmihii caloosha waa ku meed gabadhi ma fahmaysaan waxaana loo dilay waa midgaan marka insha Allah lama kala qaban doona hawla la soo dhawo meeshaad ka soo hadlaysay magacaaga la ku bilaabay biyo ku naaxay waxa ku noolahay koonfur Afrika gaar ahaan magaalada xeebteedka Durban ma sha Allah biyo ku naaxay soo dhawo walaalkay wadaawna si branch kala socotay طبعا هذا وين وانا سعودي حقيقتي وان كحمحي ورشيد الصوماليات دبك سو غاري طبعا ميدان عقلي سي غرسدي سي ماكي سليتايا دبك او geystay haduu ogaan lahaa qiimaha dadmada walaalnimada garashada iyo ciisaha ee leedahay dibkaas kulmo oo sakaceen ilaahay waxaan uga baryayaa wax kasta oo soo gaaray inuu u saqiro iyadana ay u noqoto mid tusaale dhanka nolosha ah dadka ku dhaqmaya heerka dadka cusurnimada ku dhaqmaya ee heerkaas nolosha ka gaaray waxaan ugu baaqi lahaa walaaluhu dadku waa kuwa wada dhashay aqli iyo diin iyo garasho iyo iimaan walaalnimo iyo asxaan ayaa inaga wada dhaxeeya noloshu waxay ku qurux badan tahay qadarin waa mahadsantahay walaalkay ma sha Allah shukran baan ku leeyahay walaalkoolka ayaa igu badan waqtigan uu igu yaryahay waad ku mahadsantahay walaalkay adiga wuxuu ahaa walaalkay biyo ku naaxay ma sha Allah intaba ku naaxay waad mahadsantahay walaalkay dadaawanaysid waa xogaa kaftan insha Allah gabadh kale ka qaban doona halo soo dhawo magacaaga meeshaad ka soo hadlaysid السلام عليكم عليكم السلام soo dhawo baay Leila حمدي كالقالميا Leila hadi soo dhawo حبيبتي خدك محيتوي هذا سوقلay محيتوي abaran ku soo celinay maxay link ma ku jiraan linkaad ku jirta ha Facebook waa lagu maqlayaa ka hadalay arinta murugada laba abaayadi aad ugu xumahay dadka wuxuushta waxaas ku dhaqmaayeen adiga hadda waxa ka maqlaydo inay sargeysay ka dhacdo hadda Soomaaliland kama wada dhicinaad leedahay xabiibtii Somaliland iyo Soomaaliya oo dhan waa maxay ahayd cusuriyiin dadkan maxay ahayd ilaahay nagu dhex beeray wuxuushta aniga wuxuush baan dhihi karaa waa wuxuush waa aynaya weyna istaahilaan ay wallahi billahi tallahi way istaahilaan hadda ka hor waxaan joogi jiray carabtaan joogi jiray markaan banaanka marayno carabu waxayna dhihi jiray Soomaaliya wuxuush Soomaaliyiintu waa bahalo dhurwaayo wayna la dhihi jiray noox marka Soomaalidan baan waxaan u arkaa wuxuush arinta galabtaan daawaday aad iyo aad baan ugu xumahay waa arin geeri macnaha maxay oo wax laga xumaada ah Somaliland waxaan leeyahay maxay ahayd waxaad ahaydeen waxa aad dadkan ayaysin iyo saad noo takooraysin inka insha Allah waxaas ah oo midga ah oo qudun ah waa midgaan ka saas maanta wax yeelay haduu annaka wiilkana maanta midgaan ku dhahooyo isaga midgaana koska gabadhiisa buu soo laalaadiyo soo xidhayo sida la arko wada oo wuxuush oo aqli lahayn taani walaalo maskaxda waxaad moodaa futada laga galiyay wa rabbul kacba aniga waan ka yaabanahay Soomaaliyeed qof walaalkooda la shahaadinayo oo la midaba oo la arko oo la diina oo ka qurux badan bay waxay leeyihiin saas ay ula dhaqmoyaan nasiibkooda maanta dhigay nasiibkeeda maanta qabtaa ama nasiibkooda maanta meesha saas oo kala maxay ahayd ay qabaan waan ka xumay waa wax laga xumaado Somaliland oo dhan waa isku wada mid saas u cusuriyeeyaan dadkeena cagta hoosteeda u galiyaan Soomaalida oo dhan way wada qabaan waxaan Soomaaliya oo dhan ba marka ay kala qaadin miya aniga ma kala qaadaayay wallahi ma kala qaaday xita Yurub taas ruuxeedaas aan joogno baysan noogu cusuriyeeyaan ma kala qaada aniga Soomaalida waxaan dhihi karaa waa dad maxay ahayd waxay yihiin aan la sheegi karin
macnaha qof walaalkaayo oo kula diina oo kula akhlaaqa ba maxay tahay sas kuula dhaqmaayo wax macnaha maxay ahayd caqliga maxay ahayd saliimka ma qaadan karo diin islaamna ma qorayso diin gaalana ma haddii waxa waaye aniga naag ma dhibaan aan ahay nin ilahaasi soo doonto i guursado waxa waaye ma cusriyeynayo waxaan ogaa inuu nin macnaha muslimna yahan aaminsanahay layla walaa anoo khadka igu yaryahay ka waran wiilka maxaad kula talin lahayd gabooyaha oo gabadhiisana laga dilay ilmihiisana laga dilay wiilkan waxaan kula talin lahaa maadaama gabadha miskiinta xaamiladaasaan loola dhaqmay isagana waa maxay ahayd waa la dili karaa waxaan dhihi karaa naftaada iyo nafteeda maxay ahayd kala soo carar oo kala soo dhex maqli jira biyo kaa badan iyo col kaa badan way ku hafiyaan okay walaalay waad mahadsan tahay horta anagana waan kula talin lahayd laakiin halka dhaqaalaha iska yar iska yara xun maanta kale waxaa ku fiicnaan lahayd raayad oo aragta waynu garab taagana insha Allah bilmilaha karin waa garab taaganahay qofta saas loo gala gacmihii laga curiyaashay luguhii laga curiyaashay waxa waaye ilmaha yar xaamilkiisa waxa waaye wax saas loola dhaqmaayo hadda ka horna maxay tahay waxyaabaha Soomaaliland waa meelaha ugu sii daran cusurnimada waa ummada aan ka yaabay oo wadaadana way isku sheegayaan maxay ahayd dad cilmo laba maxay ku dhex jirtaan leeyahay aniga wallahi bilaa shucuurtay waa qabsanta waxaan ku hadla ma aqaano marka maxay ahayd ummadan waan ka yaabanahay marka maxay ahayd insha Allah wixii hiil hoobana waa la garab taagana maadaama anaga magaciina dartiis qusaan uu gabadhan u soo gaadhay wiilkan maxay ahayd darteena loo cusriyeenayo hiil hooba inaan la garab taagana u sheegaynaa wiilkaas maxay ahayd iyadana ilaahay ha badbaadiyaan leeyahay nafteeda ilaahay ha u badbaadiyo insha Allah walaasha waa mahadsantahay aywa gabadhaas waxay ahayd Layla Cadaysay waxay ahayd gabadh gabooya waxay ahayd gabadh madhibaana waxay ka xanaaqday wiilka iyo gabadhaba dhibaatada loo geystay waxaan leenahay wiilka iyo gabadha waxaan rajaynaynaa inaan isku soo darno maadaama laba qof ay si jecel yihiin ilmihiina uu ka dhintay ayadna ilaahayna baa xaq daraha uga dhigo dadka meesha ka soo caytamaya shaarka Soomaaliland ha ku caytamin bilis anigoo ka yimid meeshaas ma fahmaysa waxa weeye waxaad ku caytami kartaa qofku waa cunsuri shantina farood ma simayeen qof baa jira xun qof baa jira wanaagsan walaalayaal waxa dhici karta aniga xamdi ahaan inaan xumahay walaalkeen fiican yaan boolaashayna fiican tahay ma fahmi kartaan marka waxa weeye qof uu caytamin qof uu qof ku dhicin gabadha ducay u baahan tahay wiilkuna talo u baahan yahay ma fahmaysaan talo ayaa loo baahan yahay gabadhana u duceeyo ilaahay inuu nabar xaq darha uga dhigo aabba inii salaamaya kolka xigan qabrina insha Allah kolkaas uu go'ay insha Allah uu ku soo celin karaa qofka marka aad ba u mahadsantiin walaalahayga Soomaaliyeed meel kasta joogtaan Soomaali anaga waa isku kaaya mid haddaan nahay ururka JWL amba dadka gabooyaha meel kasta ay joogaan waxaan u taaganahay dadkayga gabooyaha maanta meel kasta ku dhiban yahay inaan maxaa la dhahay u hadalno oo wixii dhibkiisa soo degudino anagu ma lihin television run baa fiican Soomaaliya televisionada xitaa waxay noqotay televisionada caadiga wararka waxay noqotay qabiil bay noqotay ma fahmaysaan anagu television ma lihin anaga dadkayga ugu soo bandhigno laakiin waxaan leenahay JWL page baan leenahay page-kaygaasaan ku soo bandhigaynaa ma fahmaysaan wixii kastoo dhibana loo soo geysto inaguna waa nala arkaysaan laakiin markaan runta ka hadalno ma wanaagsan in la iscaayo qofkaasaan ka qaban doonaa insha Allah halo assalaamu calaykum walaal soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام walaal meesha joogtidii magacaaga aan ku bilaabay walaal waxaan joogaa dalka Australia waan kala soo hadlayaa inta xad dalka Australia waan kala soo hadlayaa maanta walaal barnaamijka salaamaad socon hore ugu soco walaal macaan waxaan ahay nin santalada iyo shaqaan ahay marka waran inta hadlaysa doonaya in la siiyo anigoo ah Suudaanka Isa walaalo waan ka xumahay gabadha hadlaysa xaas weeyaan gabadhaas iyadana way ku maqlaysaa Layla Cadaysay laakiin waan ku raadinaynaa gabadh kale hadda u baahan soo gabooya waaye gabooya isku taga waxa leeyahay waa nalaayasaya idiin sameeyo anigu waxaan ahay nin Suudaanka Isa qaan inta galaabaanay waliba Suudaanka Soomaaliland ina gabooyada doonaya walaalo horaan u sheegay dadkeena faraheena walaal ma sino gabooyo xun baa jira Soomaalida kala qabiiladeena kala Soomaalida qof xun baa jira marka dadku ma sino walaalo waa mahadsan tahay waana ku raadinaynaa gabadh insha Allah wiilkaas waxa wiil walaalkeena oo yiri gabadh baan raadinaya arrimahan gabadha ka muu hadlin ma fahmaysan waxa weeye dhibka markuu taagan yahay dadku ciyaar bay dadku soo wacayeen amba wixii bambeenay dhaafaan Soomaaliya maanta hadii inan yar in laga kufsado qabiilada kala Soomaaliyeed ay dhibkaas ku dhici lahayd shafkaad qaraaci lahaydeen runaan isku sheegno waxa weeye shafkaad qaraaci lahaydeen waa barooran lahaydeen waad ooyi lahaydeen saqiir iyo kabiir waa wada ordi lahaydeen anaga cid maanan dilin cid maanan qarxin cid waxba uma aanan geysan laakiin waxa nagu dhacay dhibaataas aniga ma awooyaasheeda horaan habaaray ma garanayno dib baan haysta Soomaali meel kasta aan ka degno waana laga cunsuriyeenaya Soomaali meel kasta aan ka degno laga cunsuriyay midmid fiican baa jira dhowr hablood anagu friends lahay waxay ku leeyihiin anagu reer Puntland baan nahay ma sha Allah waan iska guursanaa waan isdhax galnaa wadankaas Puntland soo guura qaar xamir saasi leeg
meel aan u cararna male anu caawa facebookayga waxaan kusoo qoray soomaalinimadaba yaa iga masaxa magaca soomaaliba yaa iga tirtira waayo xanuun baan dareemaya xanuun waxaan dareemaya anigu hooyanahay hooyo ka waran iyadoo uur la ilmihii lagu dhex dilay caloosha loogu dhex dilay oo iyada uur loo xaamila inta gacmihii laga xidhxidhay silsilad lagu xidho qoorta laga xidhay la daldalay ka warrama aabaha dhalay wuxuu ku dilayaa ilmaha midgaana afta u noqon maayo ambasado u noqon maayo ilmo yaro oo midgaan ah war midgaanka muuna qof islaam ahayn war midgaanka muuna shahaadanayn war midgaanka mayuuna ahayn xitaa adaaba nagu yiri midgaan noo bixiya anaga dad sharaf laban oo ilaahay agtiisa asiya karaamo ku leh ma fahmaysaan anu waxaaban aaminsanahay intaan adduunkan joognaan jannadaba inaga fogta haddana dhimano horaa jannadana lagu guraya waayo soomaali baa na gubaysatay every time soomaaliya waan ka hadalnaa waan ka qaylinaa ma fahmaysaan ma wanaagsana cusurnimada ani somaliland iyo soomaaliya iyo puntland iyo ethiopia waa same horena waan sheeg ani waa dii simantiin dad walaaladeeda tihiin garabkayga taagantiin ma fahmaysaan laakiin digada ay dhibaatada nagu haysaan waxa weeye ma shalay haddii ay dhibkaasu jirtay waxa tiraan xamdiye waa laga soo gudbay maanta laga hadlaya maanta waxa taagan ka hadlayna xamdiye waxa weeye ambatraan ya waa laga soo gudbo 17 kala marayaayo awayaashiina hore inooga tagay camal ya waxa awayaashiina hore haday inooga tageen maxaad idinku baabiin weydeen maxaad idinku u baabiin weydeen maxaad idinku ula hadli weydeen waa ina laga hadla qof kastoo iminka Soomaali ah amba Facebook iga daawanaya Soomaali marka la anigu waan ku jira hadda u fiirsan anigu wali Soomaali baan Soomaalinimadii ma diidani qof Soomaaliya qof muslim aan kula si ahay waliba qof kula diido kula dhaqanan kula afrikaan aan ahay oo qaarada madow kana yimid laakiin waxaad ogaataan qof kasta oo maanta Facebook ku jira waa ina qof kasta oo dameerle inta leef soo gasho waliba rag u badan yihiin waa ina arrintan ka hadlaan waa ina arrintan gaarsiiyaan dadka kale waa ina wadaadadu ka hadlaan waa ina wadaadada waliba reer Soomaaliland waa ina ka hadlaan oo arrintaas ay daba galaan oo beesha maanta gabooyo beelweynta gabooyo ilmahooda la dilay xeer iyo xuquuq waxaan u leenahay banaankana loo soo dhigaa cadaaladeeda waa inaan helnaa laakiin inanta aabaheed baa dilay walaalkeed baa dilay cid kama soo hoos qaadaysa hadhow la dhahaya ilmihii caloosha ku jiray muxuu ahaa waa midgaan baa la isweydiinaya isweydiinaysa bale marka waxaan ka codsanayaa maxaa la dhahay culimada reer Soomaaliland iyo culimada Soomaaliyeed oo dhanba inay ka hadlaan haddii inan yar la kufsado Soomaaliya qabiilada kala Soomaaliyeed aan gabooyaha haddii laga qabsado amba 4.5 aan hayn warnimada Soomaaliyeed waa soo wada kacaysaan Facebook live ma noqonaya haddii qabiilada Soomaaliyeed qabiil kamid ah haddaan caawani xamdi ahaan aan barta ay soo fadhiisto war afad gacanta gelinaysa war ay waxaan ku boqol halba isoo jawaabiyo xijaab isoo xidhanayna qaab isoo xidhanaya maxaad uga hadlaadeen maxaad uga danqan laadiin maanta dadkayga wax lagu hayo dhibka dadkayga gabooyaha maanta lagu hayo maxaad uga danqan laadiin war adigu nucsuriyay oo kula aan kula dhiigno oo kula danaha kula maxaan garanaysaa kula ehelnahay ya oo inaan iyo abtiga aan soo noqon karayno ayaa hadana waxaad noogu sii daraysaa inaad ilmahayga caloosha ku jiray dishay war ma wanaagsano Soomaaliya dib isku qurux walba siiba reer Soomaaliland baan maanta haysanaa reer Soomaaliland koow ma aha laba ma aha saddex ma aha saddex arrimood hore laba arrimood hore ka tirsanayna arrin boor ma ka dhacday waad aragteen barnaamijyada YouTube-yada ka daawateen arrin hore boor ma ka dhacday jirtay oo arrinta hore boor ma ka dhacday waxa ay ahayd gabar saas oo kale gabooyaa waxa jeclaaday nin gudur biirsiya jeclaaday ninkii markuu inaagta mid gaanta loo doono wixii ku dhacay waa looga inag ninkii markuu isku bajacay daraadii inanta walaalkeed inanta wajiga sakiin laga dhacay inanka walaalkii iyo aabihina la xiray bal ilaahay bay nagu dhaariyay nolosha hadaya waa daawateen 2012 bay noqotay YouTube-ka ku jirta inanka khadar mooga la dhaho xaaskiisa oo xaamil ah ilmana maxaa la dhahaa u sidii laga kaxaystay waa midgaan meher kugu ma xidhno in adeerkadu Mareykanka yimid baa lagu meeriyay seenaagu la u meersanta war waxyaabo badan baan u adkaysan lahayn reer Soomaaliland waxyaabo badan baan u adkaysan lahayn waliba reer Soomaaliya noo soo gurmada mar haday Soomaaliland anagoo nool oo ku dhex nool oo ku dhex dhalay oo la wadana oo la dhiiga oo la dhaqana mar haday lugta hoosta iyaga ma gelinayaan naga soo gaaraan leena inta kale naga soo gaara Soomaaliya wallahi inaadan helin horumar inaan la helin oo inaan cadaalad la helin oo inaan la kala dambeeynin oo inaan qaraxin naga dhamaanin oo Soomaaliland inta adduunka hortiisana ictiraaf helin hadii kala dadkaaga gabooyaha ah gabooya dad baan fahansaneen dadkaaga tumaalka leh oo muusaha leh oo madhibaanka leh ka dacin surnimadaad ku haysan waa dad walaaladaya xal marin weydiiso gogol u fidi waxa tiraan walaalayaal waynaga Soomaaliya dhaban ka hadlaya marka waa dadka shanta Soomaaliyeed isku kaalay anaga naga ducaysta war anaga naga ducaysta waxa tiraan maanta dadkan meel baan kaga dhacnay waa inaan dadkan cafis weydiisana war ninka gaalka amba habarta gaalka ku istaagtid amba baska dhexdiisa saa u taabatid sorry aad iska soo jaraysaa هذا فهم سوري طبعا شبه رالي جلسة وقف قال أو كرو كاتشيا أكاد يسكت دقين قف كل شو كل دقيقة كل دقيقة كنا محل هاي واد قمي سنة بليس أم بليس تلفون كلام قبني يا سوري يقرأ لنا قضاء هلا سودو قد كنت شرتا ولا على سودو أبايا وقصة نقد وليلة وقصة نقدين هاي ليلة سودي بورك
waaye maxay ahaytoy waxyaabo maxay ahaytoy oo aan macnaha aan ka tegayaan rabaa inaan kamilo waxa waaye walaalo maxay ahaytoy waxaan kuu sheegayaa horta maxay ahaytoy hadday waan xanaaqsanaa hadalkayguna uu kacsanaa waxaana iga keentay maxay ahaytoy waxaa iga keentay maxay dhibka meesha ka jira marka waxaan kuu sheegayaa walaalay macnaha Soomaali hadda waxa macnaha maxay waxa dhahday Soomaali hanaga soo gadho waxaan halkaan kaaga sheegayaa oo maxay tahay indhaha la iska qaban karin in maxay ahayd Soomaaliya maxay gobol kasta hadagaana inay sidaas noo cusuriyeeyaan laakiin se waxaan anigu kula talinayaa dhalinyaradeena waxaan kula talinayaa inay maxay ahayd qofna kala sheekaysanin qofna ka guursanin صح baan kula talinaa anigaygan kula hadlaaya Yurub anoo jooga nin waxaan guursaday dadkaana ninkii hadda aniga ima qabo waa ifuray maxay ahaytoy marka maxay ahaytoy waxaan anigu taaganahay wixii cid ma dhibaanku iyagu ha isshukaasadaan cid naga wiilal qurux badan ma jirto cid naga gabdho qurux badan ma jirto qofkii macnaha maxay tahay dhibaato saan oo kale hadda gabadhaan oo loo soo gaarsiiyay madaxeena diyaar baa u nahay laakiin oo na rabo oo na doonayo laakiin waxaan dhiilaa waad mahadsantahay Leylay wala Leylay waa mahadsantahay adu barnaamijka ku socon doona telefoonka dambiye wiil wuxuu soo codsaday wuxuu yiri gabadhaas aan u baahanahay anayna lagu qaban ogaa wala qabaaban iri taana waad ka xidhi doonaa insha Allah waan maqlay inaad dhahaysay laakiin anigu waxa waaye waxaan taaganahay Allahay ka alla nabigayka Maxamed nin naadeerkay waa shafka u tumanaya oo waxaan wuxuu yahay bay ku qanacsanahay ma sha Allah waa mahadsantahay walaashay haye marka waxa waaye waxaan leeyahay dhalinyarada gabooy maxay isku tashada inaka haddaan isku duubano oo maxay ahaytoy isku cudud noqono maxay ismuujino wax noqon karna Soomaalina yeena noo calaalin uma baahni dadka cusuriyiinta oo diinta haystaan la garanaynin annaka diin waxaan haysanaa macaan oo qof walba aan guursan karno muslim oo nala shahaadanaay oo aan dadka kala saaray laakiin ay wax leeyihiin diinta islaamka aan haysanaa muslim baan nasaana u dhaqmaayay ay soo saxaano okay walaalo dadku ma sinno walaalo dadku ma sinno Soomaalina waa xankur maanta waa dad badan ma sha Allah Ilaahay bayna badiyay dadku maana wada sinno farihiina seen u sineen bay dadku sineen laakiin mid baan ku sheegay wadaad ka hadlaaya ma arkin oo qof walaalkooda muslina wadaad ka hadlaaya ma aragtay wali oo waxaan arrimaha sheegay saana dadka loo bahdilaya saana dadka maxay tahay loo cusuriyeynaya waa la diin waa la dhaqan waa maxay ahayd waa la af waa ka qurux badannahay waa ka karti badannahay haddana waa lagu yasooya abaayo marka haw cala maxaan sameynaa walaalo maxaan sameynaa hadda adiga iyo aniga qurbaan joognaa waxaan doonaan ku hadli karaynaa waan qaylin karaynaa laakiin ubadkeena iyo dadkeena iyo waalidkeen ayaa naga dambeeya hadda haddaan fiidiyowga ka hadlina la dhici karta in waalidkii loo tago loo hanjabo aniga waxaan kula talinay dadka Soomaaliya jooga iyana dhexgaliyeen shukaasan iyana la sheekaysan iyana guursanin maradiisa banaa waxa la dhahay banaankiisa maradiiskeed ma qabsataa la dhahay annaka Yurub aan joognaa maanta laakiin Soomaaliya wad ogtahay inta gabadh xigta kala soo qaaday wajiga laga skiimeeyo wad ogtahay Hargeysa ayaa ninkaan maxaa ku jeclaaday inta sidoo ku jeclaaday in lagu sameeyay waan yara dul maray waan yara dul maray waan sheegay gabadha wajiga laga sii kiimeeyay walaalkeedii aabaheedna la xiray marka maxaad faraysaa dawladda Somaliland walaalo dawladda Somaliland dadku isku mid ma aha hadda dawladda Somaliland ka shaqeysa booliska iyo dadka meesha jooga maxaad fari lahayd walaalo dawlad meesha ma joogto halka wiil oo naga jiro dhaqdhaqaaq iyo taluuqa u galan been walba ku dhufteen waa ka badannahay waa ka xoog badannahay waa laakiin se ilaaha weyna waahidka ku hurday oo ku dhaafnay isku tashtaan waxbana maxay wallahi oo billahi oo tallahi gooniha ka noqdaan wax laga go'o waay wuxuush waay Soomaalida waa wuxuush baan la yaadiga ما هتصنتها ولا شيء عاد بشعورتها وكعسن سوى ندري مكريا ولا شيء أنا قبل سيدو كلا عاد بشعورتي وكعسنتها هاي إلهي بان يدعوننا أنا بدلان كلمة كوكو ده هي بدلان بنجوج جرني بدلان وماشي وكل مكان صومالي واسكمت عد لقى مرة بقول نفس جبويا لقى مرة بقول أضاف قروح بدر وقيمة بدر بهوس كودي قاين عد هوس الدين إسلامي دين قال من دم قرطاس هاي ولا شيء قال أنا ودك تناجي وقلنا مقعدة نكود الجوجا وان كحشونا مرة كشفنا مرة ما حد من رأسنا ما أنت وحوا يروب لا يقوم بهدلي كرا لكن سو وحوا الصومالي وحي قانان يكو وحي هنا قانون أدون كنت صردب بقر صردب ودعي وسخرحيليا ويسدليا وقبله هذه بدها الوقوف سنة يو بريد الوقوف سنة يو ودليرت هذا كل ما محد بدها كل ما ذين وأدون قيمة كلا حين وقحرتك أو توك سنة أو وحي هنجر أو وحاس ودن بدعة إنه وهايان إن
guursaday waxba aniga isagu xumaan kama sheeganayo calafkeena kala dhamaaday laakiin sanaaga meela kaga taajilaahay oo maalin kasta marka wax yar aan ka dhex galo marka ninka aad guursatay beesha Gabooyo mahay waa Soomaalida kale beelaha kamid ah Soomaa aniga nin waxaan guursaday maxay ahayd toy Soomaalida kale aan guursaday wuu jeclaaday kaamkaan iskula jirnay naago waliba naaga meel aan kaga taajay ninka inta loo yeero waxa lagu yiri Yurub baan isla joognaa seen naag ma dhiman u guursan kartaa seen naagtaan u guursan kartaa waxaas oo dhan ka buuxda wuu guursan laakiin calafkeena wuu kala dhamaaday ciidna ma u qabi laakiin se waxa uu sheegi karaa Yurub bay cusurnimada la jooga Soomaaliya la jooga uma adkaysan karo waxay tifiyada ka wadaan waxa maxay maalin walba mid xunba meel soo istaagsan mid gacan baasaan ma ma hadlo laakiin se wallahi oo bilaa tala waxyaabo loo dulqaadan karo ma Soomaalidu waxay wado wax loo dulqaa hadda gaalada hadda u sheegto tiraahdo marka hadda aan Yurubtaan joogno meel kasta oo waxa waay maxay tahay waxa lagu leeyahay Soomaali baa tahay hadii aan awoodo waan iska dhaqlamay aaminaysa magacaas wallahi oo bilaahi oo tallahi xabashiyad baa sheegan lahayd nafkooda garanaay warab qos waaye boqol sano caalamka dib ugu dhacay wasbuusuriyaan wasqaxinayaan wasdilayaan dhiig male damiir male Soomaaliya naga tirtira magaceeda dadkeedana hoos bay u dhigan cagta hoosteeda gelin mana gaaraan walaa qurux walaa qiimo walaa karti laguma gaaraan warabul kacba ما شاء الله ولا شيء ومحدثنت هاي هذه أكبر محدثنت مالك كستا حتى بالإنت هرجيس Soomaali لان ماشى حرة Soomaali لان لديه والله بالله طلع وماشى وحن ويل قبل على قفرة من دل جوجو لنا محن كانوا كوتش على هذا هذا تنا عمله ضل الدلدلي ومجعين وحساس لو بهدله وحال جاي أبدا اللي يفترر Soomaali يعني قبيل كيجو كوتشوجا مودنكان والأوجيه ولا شيء ومحدثنت هاي أكبر محدثنت كل دير شعور ترى كعسنيد شعور ترى كعسنيد تضمن من البنكسيات كهذا شيء تضمن دقيقة ولا شيء ومحدثنت هاي وسلام يا أولاد وسلام يا waxay ahayd gabadh leela cadis la aad bay shucuurteedu ka xasanayd waan ka xumahay dadka kale insha Allah khadkoon ka qaban doona dad baa caytamaya dadka caytamaya waxaan leeyahay shaarka ha eegin waxaad eegtaa qofka dhibaataysan oo hadlaya oo leefka ku jira anigu xamdi ah baa hadda dhibaataysan nin adeerkay garabkayga midig ah ayaa ilmihiisa la dilay hadda u fiirso 6 sano xidhnaa 6 sano ayuu xidhnaa wiil kale oo cid ah hadda 15 kama lacag iska gurna aan soo deeyna makti bixina maxaa lagu xidha gabadh wuxuu jeclaaday maxaa la dhahay qolada la dhaho gudabiirsiga ah horena waan inagu soo sheegay gabadh Gabooyo wiil gudabiirsiga jeclaaday sidee adigoo nin gudabiirsiga aad u jeclaatay naag midgaana baa lagu dilay inankii waxa uu sameeyay wuxuu haddaan naagta lay doonin waan isgubaya inanka wuu isgubay dukaankii maxkamad waxa la geeyay dukaanku gaasta kaybsaday ninku qarafka kaybsaday inuu isgubay ma khartay sugu istilay waxa la midgaha gubay anaga managa cid bagundaba managa cid dulminaba managa ka badnayna ilmaha ayaga iyo waxaan maanta bariiskooda u raadinaa wax barashada anaga imika dirqaba nagu hayda saan anaga cid u dili karayna qabiilka kaliyan qori qaadan aan dulmi walaalahooda kale aan dulmi u geysan banaa maalin kasta xalaaxa lama fadhiyana bartan maalin kasta bartan anagu kama ooyino rag ayaguna bartaas maalin kasta ka soo hadli maayaan anaguna ka soo hadli mayno ballan waxa ah ban malaynay in sanadkan la isku baabaayo qori la qaadanayo Soomaaliya waxaad ka cabsataan qofka qoriga qaata wallahi in shantada furud ka reebin baa la sharci kaama reebo Gabooyo maanta inta qurbaha aad baan soo galnaa inta qurbaha joogto waxa iibso kullan maxaa lahaa khaatuma step baa ku biirana maanta laga bilaabo khaatuma step ma karay khaatuma step baan ku biirana marka aad baan islaamay inanka ma telefoonka ka qaban doona insha Allah xana laga raali noqdaa shucuurteeda aad bas kaga kacsan tahay hello soo dhaw walaalo السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو dhaw walaal barnaamijku daawanaysa ان شاء الله waxaan ka soo hadlayaa Jarmalka waan ku shaqeynaa adiga iyo dadkeeda ما شاء الله والله كيف سو dhaw أنا ما سنتهي برنامج كأب معنا عاود تحنيسو وأنا أدي برنامج ما شاء الله والله لا برنامج وحو كسعدي واد arkay inaan soo hadlayso shucuurteeda aad u kacsanayd oo inaan maanta ma sha Allah ah qabiilka Gabooyaha ka soo jeeda aad iyo aad uga gubatay caawa si fiican u hadlaysaa jirtay ma ku raacsan tahay arrimaha ka hadlayso dhan mise dadka ka soo horjeeda tahay baladna arrinta meesha ka dhacay macnaha gabadhan hadlaysay waa maqlayay aad iyo aad macnaha Soomaalidu macnaha waa mid macnaha in la isiiso macnaha taas waxa waaye waa barnaamij hadda aysan qabin macnaha anaga Soomaaliya taanaan dad walaalaha anaan gar midda kale oo jirta waxay tahay in Soomaalidu aysan ka sineen macnaha barnaamijkan hadda gabadhan warkiisa waxa ka dambeeyay in macnaha Soomaaliya oo dhan ay tiri gobolada Soomaaliyeed waa isku mid taas ma aha waayo waxaan leeyahay
salahan hadda Soomaaliya gaar ahaan gobolada dhexe waxaa jiro in la isla degan yahay aniga gaar ahaan magaaladeeda in ay odayga magaalada mafahmaysaa صح walaal adigoo soo gaabinaya insha Allah waqtiga ugu yar inaan kasii baxaan rabaa Soomaaliya isku mid maaha Soomaalina isku mid maaha gacmaheena ma wada sinna waan ogaay laakiin caawa barnaamijku aad buu ka xasanaa waxa weeye wax laga hadlayay sheekadaas inaan maanta uur leh oo uurka lagu dilay oo leeyahay diintii intay u diidan waalidkii diintii lagu meheriyay la yiraahdo hadana ma geydid midgaan baad ilmihii laga soo riday gabadhii la dilay arrinta maxaad ka dhilay arrintaas arrin qaldan waa khadka ka xun wiilkan hello waan ka xumay wiilka dhowr jeerna wuu soo wacay wallahi khadka ka xun wuu ku soo celin doonaa insha Allah waan ka qaban doonaa please and please dad baa caytamaya dadka caytamaya waxaan leenahay anaga cashuurteeda kacsan tahay aniga khadka soo galnay anaga hadalnay ma doonayna anaga inaan maxaa la dhahay nala sii caytano inta hadlaysa oo arkaysaan ballan waxa ah hadda friendskayga nala tahay inaan balo ku saarno way qof wanaagsan baa baarkinka noo taagana soo qaadan doona Soomaalina ma sinno hore u sheegay laakiin walaasheen waxay tir Soomaali waa imid tunka Soomaali tunkay walaalo ka yihiin badhaan dadka gabooyaha runta markaan sheego dadka Soomaaliyeed tunkay walaalo ka yihiin badhaan ma fahmaysan anaga waa cunsuriyeen mar hore iyo mar dambe cunsurnimada goortan ka bixi doona ma garayno ana waxaan isla hadda cunsurnimada laga baxayaba يا وقبيلة هذا دماتن صلاة لكن والله قبيلة ما دمان سومالي حلو رايا قبيلة ما دماتن قبيلة هالسيدة ده قبيلة حمر بيك دماتن مالينيا قبيلة مركو فرماتش قبتي حمر قبتي ولا حمر بيك دماتن قبيلة ما دمان وين هاي سواتن لوايو أنا لو قلت سوريين يورجيجي وحنكر حين يهودي وحنكر حوجود بس الله ماري اللي هي مجديد ما فاهم سا رجيجي جبويه أنا وحنكلا كل دار بيهوري وحن لا هلس برسدو هلس دحجلو لكن هذا دلنير تيجي جبويه وحن لا وريا نجا قروح بدن أنا جي مكهبر بن هو أركتان ما فاهمسان بقول عليك قروح بدل يربجر أنا قبلها يجي السنة أنت أنا نقول حتى أنا سورة ستو بليس عن بليس توجيه Soomaali wax dhaxgal Soomaali Soomaali runta wax in loo sheegay mooyaan waxba kuma qaadato ninaan shantada farad ka reebina sharci ka marreeba baali ma fahmaysan telefoon waxaan qabanayaa insha Allah Kenya soo dhawaan dhayna qofkan insha Allah soo dhaw walaal arrintan inaad ka hadasho doonayna soo dhaw assalaamu alaykum alaykum asalaam walaal waan aragnaa lambarkaaga magacaaga soo daa meesha joogtid waxaan joogaa magaalada Nairobi هيا برنامج كده حدا وتكون شرطة ولا لاني كوكا سيبحي ربا إن شاء الله سوق بجبي برنامج هو الله صعدا وأنا جيسني هذا قرآن كان وكان صعدي أروح كان مرة وين أشرب واحد ربا إلى ذي شرب واحد قاعدين كهذا الجوية تنادي نفعية هيا بالسودة فهم لنا يا رأيي أنا ماشي وقارن شغل الهواء فوق صقري لا ما يتذكر بدن تذكر بدن ولا لو حنو بهنا يدنا إيش تدج سيد إن شاء الله وركا Soomaalidu diinta waa iska sheegataa kuma dhaqato ma fahat صح gabadhu waa dad islaama waa dad Soomaali ah waa dad maaragtay qofka Soomaaliga wuxuu yahay la wadaaga ma garat صح marka gabadhu dadka kama tira yara kamana aqli yara kamana maal yara kamana tira yara ma fahat صح Soomaalidu waxay ixtiraamaan oo qadariyaan qofka iska dhacasha marka gabadhu waxaan ku iskala talinayaa Soomaalida inay iska dhacashaan وعويه شن كون أو جبرية عملات كون أو جبرية سمعنا كونه. صح. مركا ويل جبر شغلاتي أما جبر ويل شغلاتي هذه ما أنت ما عرفتي بقولات تقال هيولي نحب شغلاتي. صح. وواحد لقى تقال لما مركا حكت تقال لما أخين بس كان يسكت عشان أساسا كلها ترلنا يا بدون أساس يكوجرته. waad mahadsantahay walaalkay gool maalin un baan guusha gaari doonaa insha Allah walaalkay adna waa mahadsantahay ayo alxamdulillah ما شاء الله ويلكاس ويل ريف عم بوها تلية تسالن للسيء ولكن وما هتصنتهاي جبويه واتد بدن مال كستي أي سومالي تشوكتو ويدقان ما عنده الحركة يمدك له واتسابن كود هذني أرجعين نشوفه وار مال كستي مين دقنا مال كستي وين شوفنا مال كستي أنا حابن أمسنة قال إسلام يا عربي مال كستي وين دقنا لكن أنا جويا شيء ظهر عنها هبار كملنا قاعد عم قرنينا واي أنا تولير نحتوي لوين تولير يكيا كلا ده بدلني مكحساب سنبالين هاي هذا تولي أصلا أنا وهم كبر دقنا تولي أصلا أجورنا beeraka dilacsanayna maxaa la jabhad ka sameeysanayna kii noo soo dhawaada baan kaga hurkufsiinayna run markaan isku sheegnay Soomaaliya waxa inaan shantaada farud ka celin sharci kaama reebo ma fahmaysan waxa weeye qof lay markuu qori qaato Allah waa ina heb waa nin geesiya qoribu wata qabiilkiisa loo daba dhaqayaa waa qabiilkii hebel isbaaru dhigta waa inaan isbaaru dhigana annagana waa inaan dagaalana maalin kasta waxaan ku jirnaa bariyo tuugo iyo hana la guursado waxaan la hablaha la siiyana loo daayo maxaa la maalin kasta ma dhahayno no way soo dhamaatay taas wal soo afjara
wadamada gaalada aan joogno dadka gaalada ah ayaa maanta anaga noo dhaama wallahi wabillahi watallahi in waxan uga caawe ilmaha gabooyaha ninka soo dilay inuu ninka gaalka ay dhaamo taas uga si sharciigu isiyo waxaan kori shaqo isiyo gacantaada maale oo nabadgelyo isiyo meelan igu cunsureysan in ban taagan jooga ma fahmaysaan imikana kaga hadlmayna sidan meel kastay dawlad joogto meel kastay hay'ad joogto meel kastay maanta aan ku noolahay waan geenina xafiis kastay meel kasta gabooye kasta uu jooga qurbaha ku badiyeen dadweynaha Soomaaliya meesha joogtid uu kula jooga gabooye ma fahmaysaa meel kasta waxaan geysanayna waraaqahayaga dib hal isku soo wada baaro hayna la wada celiyahan isku baabaano wadanka hayna lagu wada celiyahan isku baabaano asxan sida maaragtay South Africa dadka loo marmarinayo kala noo wada mariyo marka geeridu waa xaq adoo xabad qaato caadi bash in looga siyaana loo la qaatay wallahi noloshana hadda ku jira dadkayga ku jiraan aniga hadda dib ma qabo alxamdulillahi rabbil alamin waan ladanahay waan soconaya laakiin waxa dib ka qaba kuwa aan meesha aan kaga imid baa dib ka qaba ma fahmaysaa inta meesha ku jirta afarta odaya dawladaha noogu jirana meelaha noogu jirana qoto wax ku cunaya dadkooda ma arkayaan hoos ma weegi maayaan shacabkooda hoos weegi maayaan ma fahmaysaa marka qabyaalad may dhamaanin Soomaaliya markii doorashadu ay dhacday oo 17 doorashadu inoo dhacday waxa tiraan qabyaalad way dhamaatay wallahi wax dhamaaday male oo billahi wax dhamaaday male qabyaaladii ugu xumeed baan la saaraya xoog ugu xumaa baa wali haysta marka aad baan inii salaamaya meel kasta joogtaan umada Soomaaliyeed wali wayna jecelnahay wali wayna soo eegayna bal intaan lahayn anaga wal hor waxa balnaaba gogasheeda dacalkayga noo baneeya Soomaaliya aan ku soo fadhisanay Soomaali markaan leeyahay Soomaali baan wali Soomaalinimadii ka bixin waxaan maqla jiray qof diin ka baxay والله هدي لقى بحي الصومالي لماذا ولا إسكو صحيح حاجة قبيلة ذا كله يا غانا استيو محل رئيسك يوغندا استيو كينيا تيو إثيوبيا كدي اللي صحيح حيو هورين كجري لها سيمو بدهن وبمدجان يمو بدهن ده فاهم إذا حتى الصومالي دو حبيك أنت بقى شقة دي ميلي اللي شقيني حتى قربها إن الله قال دي اللي بربك كنا مدجان إيه كناس هي بالكراء هاي إما كان قربين أنا كقطبت معدين كان دي نودو دي نقف كي كنا لقوايا مدجان هباليدين warqofkii jannada laga waayo yaa qofkii jannada gala midgaan ah taasan anigu inuu leeyahay kii jannada jab dhahan midgaan ah taasan anigu inii sheegaya ninkii jannada gali waaya ayaa maxaa la dhahay in Highland dheera taasan inii sheegaya ma fahmaysaan waxa weeye arinta maanta Soomaaliland oo kaliya ma qosayso Hargeysa oo kaliya xitaa ma qosayso meel kasta Soomaali degtay qosaysa sidee bay kula tahay ilmahaaga aad dhashay oo waalidinka walaalka oo kula dhashay intuu gabadh guursado reerkii aad ka doonataan oo sharafka ka doonataan oo loo diido loo dhaho no ma la huseynayo oo haddana tago oo loo diido inantii inanka si jecel yihiin diintii islaamka lagu meeray ma fahmaysaa gabadhi markay uur yeelatay waalidkeed la intuu yimid walaalkeed iyo naadirkeedba iyo maxaa la dhahaa aabeed intay qabteen gabadhi la dilay silsilad ba gacmaha laga xidha laba jeer ba qoorta laga daba xadiga biliis daawada fiidiyowga markan leef kaga baxay intay daawanaysa fiidiyowga beeshkan yaala daawada waxa la sameeyay xadig ba qoorta laga xidhay gabadhi laba jeer waxay tiri xadiga hadana way jareen hadana way qabteen hadana way jareen ma fahmaysaa waxa weeye hadana caloosha la iga dilay beter dhabarka la iga dilay ilmihii midgaanka ha ma dhalaysid baa leeyahay ilmo midgaana nagu ma dhalaysid baa sidii baa ilmihiina soo gombeeyda calooshooda ku jiraa beter gabadhii reerkoodu way soo yariyeen xaafada kale ku dhuumanaysa inankii gabooyo gurigooda uu ku carar qori ma haystaan reer Landeero ma hada shafka iskama qaraacayaan qorintii qaataan ari cari soo dhawaada ma dhahayaan waa dad masaakiina oo saboola aan waxba haysan oo intii waxay sateen qurbaha soo gashay soo tahriibtay ma fahmaysaa waxa weeye dadka maanta dib ha u eegto dawladda Soomaaliland ya inta Hargeysa joogto ba reer Hargeysa xilka saaran yahay hoos ha u eegaan reerka maanta dib ha loo tago maxkamad ay la tigsanina maxkamad waxaan maqla jiray maxkamadda heeg ba qofka la saaraa maxkamadda heeg baan la tigsanina anagu hadaan gabooyanahay reerka iyo qabiilkaas dadku ma sinno kulay anu dadku ma sinno marka qofkan baan ka qabanaynaa kulay Soomaaliya ka soo hadlay nur Soomaaliland ayaan jeclay lambarkan qofkaas aan ku soo gabagabayn doonaa insha Allah sorry waan ka xumahay qofka kamarada u furan kamaradna kama qaban karayo iska soo xir kamarada insha Allah walaalkay marka walaalayaal anigu hamoodina maalin kasta waxaan la qaylina waxa dhariga maxaa karka ka keena dhariga muxuu la karkaraa karka maxaa ka keena ta kulaylka ka keena kulaylka annaga maanta waxa qaylada iyo kulaylka iyo quuqana ka keenaya waa dhibkana lagu hayo marka qofka baan ka qabanayna insha Allah soo dhawo walaalo magacaagii meesha joogtid هلا ولا شيء سود أو كينية شوف تصنع كذي كخ سود الدكتورية هذا الكلام خطك كحمر كينية خطك كحمر خطك كحمر كحمر هاي عليكم السلام باي سود وشيت وان كشري وحن موذين نسوق للمركع أنا كعلن دونا قبل إن شاء الله
waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaan dad baa jira na taageersan dad baa jira ka xumaanaya dhibkana loo geysta dad baa jira hadda markaan hadlayno oohin soo turubaya dad baa jira jecel inayna soo wacaan aan koolka u gelin ma fahmaysaan dadku ma wada sinno horeyna waan u sheegay marka walaalayaal meel kasta aad joogtaan ummadda Soomaaliyeed halka raali noqda xaw shucuurteedu waa iska kacsanayd meel kasta waan hirdinaynay laakiin hadda dhibaatada waxay naga haysataa hadda 3 dhib oo umka sanadkan gudihiisa aan intaan qurbaha joogay ka dhacay wadankii waan inii soo sheegay waa Boorama iyo Hargeysa xitaa Burco ma gaarsiisano waa Boorama iyo Hargeysa please and please han isku tagno dadkeena gabooyaha ah meel kasta aad joogtaan inaguna han isku tagno bal inankaas han soo meeshaan ka soo saarno inanta haday soo raacisay raaliska yeen xitaa ma gafuhu kulay sanad la fadhiyaan ma gafaha dad baaba sanad ay haystaan iska soo daayay aan soo tahriibin hadana fiisa kale weyn aan soo tahriibino maxaa kala loo qaban karayaa wadamada Itoobiya kale xitaa hala keeno inama labadii wiil hore xitaa reerkii horan kaaga sheekeeyay sheekeeyay dul maray oo inanka walaalkii la xiray oo aabihii la xiray oo walaashii wajiga sakiin lagaga jeexjeexo liisay inaan maanta qabiilka gudubiirsaha ku jeclaada Booramiyo hantidooda way ka qaxeen bal ilaahay baan kugu dheeriyay xaqan ku noolaanayna way ka qaxeen Booramiyo hantidooda Hargeysa u guureen ma fahmaysan Hargeysa u guureen Mustafa ina wiilka la dhahaa uu dhibaataysnaa 6 sano xabsi ku jiray 6 sano xidhnaa waxa aan sameynay lacag baa WhatsApp-adan lacag uga gurna qabiilkayga isku tagay orda magti ninka waan bixino ma fahanteen magti ninka sidii baan ku bixinay sidii baa lagu soo daayay markii la soo daayay ma ninkii midgaanka habarta noo bariyay baa leeyahay reerkaba uu qaxo Hargeysa tagay waa la siira kala dhaamaaban sir marka Hargeysa laguma yaqaano sigi lama yaqaan laakiin Boorama waa laga yaqaan oo hantidiisa iyo rayiskiisa iyo gurigiisa uu ka tagay noloshaas oo kala xaqay taala maalin kasta man sii qaxayna maalin kasta ma Soomaalida kale waxaan dhahayna maalinba meesha ka sii qoox maanta laga bilaabo anaga khaatuma step baan u guurayna khaatuma step boos nooga banaani haan malaynaya taas ayaa noo balanay insha Allah aad baan inii salaamaya intay daawanaysa kal iyo laaban in leeyahay walaashin xamdi galgacal waxa weeye wixii dhibaato wada Ilaahay ha naga qabto maanta ka dambe Ilaahay baan u dacwoonaynaa maanta ka dambe Ilaahay baan u dacwoonaynaa qof Ilaahay lagu reebay ya muxuu adduunka sugaya war rabadaan baa soo galaysa Ilaahay ka cabsada aad baan inii salaamaya insha Allah jannada ay noo balana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa way intii iga xumaatay koobiyaha cabto markay cabto iyada iska degi doontaa qof shucuurtiisu kacsan tahay bana oo hooyo ah oo dhibaataysan oo gabadha iyo inanka u hadlaysa marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saasan inii ka tagay insha Allah